daawadayaal janaalkan Shiil Media waxa uu idinkugu soo gudbin doonaa qodobo xiiso leh oo aad ka heli doontaan oo isugu jira waxyaabaha mucjisooyinka ah ee dunida ka dhaca, caalamka aqoonta, cilmi nafsiga, sheekooyin la xiriira arrimaha bulshada iyo sheekooyin kale oo aad u xiisayn doontaan oo ku saabsan sirdoonka. dalka Soomaaliya xilligii dowladda militariga waxa uu lahaa sirdoon aad u xoog badan oo badankooda lagu soo tababaray xarumihii sirdoonka midowgii Sofiyeeti ee KGB. waxay inta badan dabagal ku samayn jireen safaaradaha dalalka dibadda ee Soomaaliya jooga, oo ay ku jirto xitaa safaaradda midowga Sofiyeeti oo ahaa dalka inta badan tababarada siin jiray sirdoonka Soomaalida. qoraal xusuus qora oo uu lahaa xubin sirdoonka Soomaaliya oo ahaa nin sarkaal ah oo la oran jiray Carabi, wuxuu ka hadlayaa sida Soomaaliya iyada lafteeda ay u joogeen sirdoonno dalal kale sida kuwa u shaqeeya Itoobiya iyo weliba dalal kale oo qaarkood Talyaaniga ku jiro. waxaana muddo dheer dalka Soomaaliya ku sugnaa sida uu qoraalkaasi xusayo nin ka soo jeeday Itoobiya oo muddo dheer dalka joogay, ku ilmo dhalay, lehna magacyo Soomaali ah, isla markaana dhalasho ahaan qabaa'ilka Soomaalida sheegtay laakiin qarinayay dhalashadiisa Itoobiyaanka ah. Carabi isaga laftiisa waxa uu ahaa sirdoon Soomaaliyeed, wuxuuna ku biiray xilli ku aadan wax yar ka hor dagaalkii 1977 dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. wuxuuna marka hore sidan kaga waramayaa sida sheekadiisa sirdoonku ay ku bilaabatay. wuxuu yidhi, waxaa shaqo ahaan markii hore ahaan jiray nin waardiye ama ilaaliye ahaa oo ilaalin jiray guri ku yaala degmada Hodan. guriga waxaa lahaa shaqsi Soomaali ah oo dibadda joogay ama dibadda ku noolaa siiba dalka Ingiriiska. guriga ayaa 1976 ama ku aadan 1975 midkood waxay jaartay safaaraddii midowgii Sofiyeeti ama Ruushka, waxaana hooy looga dhigay safiirka Ruushka Soomaaliya u fadhiyay. aniga sidaas ayaa noloshayda ilaaliye guriga safiirka u soo wareegtay. waxaan waqti yar ku bartay luqadda Ruushka, waxaana igu soo biiray ilaa 2 ilaaliye oo kale oo ila shaqaynayay, maadaama gurigu ahaa mid aad u weyn aadna u shaqo badan. safiirka gurigiisa waxaa ku taalay shaleemo, noocii shaleemooyinka ee loo adeegsan jiray cajaladaha waaweyn ee riimka loo yaqaanay, kuwaas oo ay ku shaqayn jireen inta badan shaleemooyin kale oo ku yaala magaalada Muqdisho. waxaana markaa aniga la i baray in aan shido shaleemada oo aan habeenada Sabtida iyo Axadda filimo ku maaweeliyo safaaradda safiirka iyo weliba shaqaalaha guriga safiirka joogay. safiirku waxa uu ahaa nin aad khamriga uga caba, waxaana gurigiisa sidoo kale la joogay shaqaale Ruush ah oo qaarkood si uun u xirxirnaa, dabeecad ahaanna aan qaarkeen Soomaalida ay guriga ka shaqaynayay ku tilmaami jirnay inay yihiin ama u muuqdeen dad basaasiin oo isqarinayay. shaqaalaha Ruushka cabsi badan ayay ku qabeen safiirka iyo xaaskiisa oo mararka qaar si xun ula dhaqmi jiray, aadna u canaanan jiray. mar walba habeenkii way noo iman jireen, waxayna weydiin jireen taariikh nololeedkeena, taasoo gebi ahaanba shaqaalihii Soomaalida ahaa ku abuuraysay cabsi in dadkani ay noqon karaan shisheeye sirdoon ah. safiirka waxa uu lahaa saaxiibo Soomaali ah oo xilliyada dambe ee habeenkii u iman jiray, oo ay meel gaar ah wada fariisan jireen, ilaa waaberigana ay wada fadhiyi jireen. inkastoo markaas aanan anagu waardiye ahaan aqoon fiican u lahayn waxa ay yihiin Soomaalida xilligaas safiirka isoo haasaa watagi jirtay, inkastoo markii dambe aan gadaal ka ogaanay in qaarkood ay ahaayeen madax sare oo ku jirtay dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre hogaaminayay. marar badan xilliyada dambe ee habeenkii waxaan agagaarka guriga safiirka uu degan yahay ku arki jirnay dad u eg kuwa sabool ah oo derbiyada jiifa, kuwo iska dhigaya dad cabsan oo ku wareegaya agagaarka guriga
taas oo iyadana mararka qaar aanu ka qaadnay shakeey badan oo ku saabsan in dadkan ay noqon karaan sirdoon Soomaaliyeed oo daba socda dadka guriga safiirka yimaada ee Soomaalida ah. Sida uu sheegay Carabey xusuus qorkiisa, muddo kadib waxaa u yimid rag Soomaali ah oo si qarsoodi ah uga codsaday isaga iyo raggii kale ee la shaqaynayay Carabey inay la kulmaan si ay arrimo gaar ah uga wada hadlaan. Carabey wuxuu lahaa aqoon kooban, wuxuuna yaqaanay luqadda Talyaaniga oo uu bartay xilligii yaraantiisa oo uu la noolaan jiray qoys Talyaani ah. Waa waqti ku beegan ilaa 40-meeyadii. Xilligan dambe ee markii uu Ruushka la shaqo bilaabayna wuxuu bartay luqadda Ruushka. Waxayna raggii la kulanka ka codsaday kula kulmeen xaruntii wasaaradda beeraha ee ku dhow CID-da, iyagoo u sheegay inay yihiin saraakiil sirdoonka Soomaalida ah, mararka qaarna ay iska dhigaan dad cabtooy ama dad saqraamiina, masaakiin iyo xitaa tuugo. Carabey wuxuu sheegay in aan waxba loo qarin, inaguna yiri waxaad maanta laga bilaabo adiga iyo saaxiibadaad tihiin rag ka tirsan sirdoonka Soomaalida, maadaama aad joogtaan guriga safiirkana waxaa laydinka rabaa inaad xogta ku saabsan dadka u imanaya ee uu la kulmayo safiirka inay soo gudbisaan. Xilligaas waxaa jiray dhaqdhaqaaq ku saabsan in Soomaalidu doonaysay inay ku duusho Itoobiya, iyadoo weliba shaki ka qabta sida Ruushku arrintaas u soo taageeri doono. Waxaana dowladda Soomaalidu ay ka cabsi qabtay in Ruushku la soo safto Itoobiyaanka, sida markii dambeba dhacday. Qormadeenii waardiyihii Carabey ee sirdoonka u shaqaynayay ee la daba dhigay safaaradaha iyo basaasiinta Soomaaliya gudaheeda jooga maanta halkaa inoo joogto. Waa inoo qaybta labaad iyo kulankeena dambe.